waan ku salaamay daawade halkani waa Haga Academy ku soo dhaw casharkan cusub ama videogan caaway wuxuu aad iyo aad u anfacayaa dadka isticmaala aaladda social media ugu caansan ee TikTok waxaad inta badan gashaa live waxaadna mararka qaar jeceshahay inaad la soo degto dib aad u hesho live-ka aad gashay haddaba waxaan ku tusinayaa qaab fudud oo aad ula soo degi kartid fiidiyoyaashii ama live-ka aad gashay asagoo ah video la soo degi kartid kadibna aad markaas haddii aad u baahan dib soo dhigan karto haddii aad qof comment soo dhigan waxyaabo markaas qaldan oo iska dhaxartid dib aad u fiirin karto ayaan ku tusinayaa muhiimaddu waxa weeye inaad fiidiyowga dib u hesho haddaba ku soo dhaw casharkan caaway go jira sen casharkan u guda galno waxaan soo furanaynaa teleefankeena waxaan tegaynaa applicationkeena TikTok markaan applicationka nimano sidan kugu soo baxo waxaad tegaysaa qaybtan profile-ka ah oo ay ku jirto koontadaada ayaad ku dhufanaysaa marka aad ku dhufato koontadaada waxaad kasii tegaysaa maqsinka meel kasta aan ka aadna markaan sameeyo applicationada ka sameynayna casharada oo ah inaad ku dhufato saddexda xariiqtimood oo geeska ujeedada ku dhufato kadibna waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran setting and privacy ayaad ku dhufanaysaa setting and privacy marka aad ku dhufato hoos ayaad u soconaysaa ilaa aad ka aragto optionka ah live reply falarta waad aragtaa optionka live reply ayaad ku dhufanaysaa kadib marka live reply kaliya aad ku siiso wuxuu ku geyn doonaa halkan waxa ku jira dhammaan wixii aad live gashay fiidiyoosha laga duubay ayaa ku jira halkan qaybta koowaad aan ku dhufano oo korayda haddaan click siino oo ku dhufano waanu daari karnaa markaan daarno waa mid aan wad iska baraaweynayna dabcan haddaba mid kasta sidan ay kala ayaad u fura kartaa wuxuuna sidoo kale kuu sheegayaa timekii oo halkan daari timekii kuu sheegayaa iyo durationkii iyo sidoo kale intii ku daawatay iyo haddii aad coins heshay oo kale sidoo kale wuxuu ku siinayaa calaamadii downloadingka oo aad kula degi lahayd iyo trashka aad isaga remove garay lahayd halkan haddaan ay ku dhufto waxaad arkaysaa inuu ku leeyahay delayed video recording markaan ilaa delayedna 3 ayay ahaayeen 2 ayaa soo hartay halkan markaan ku dhufto downloadna waxaa arkaysaa inuu degi doono oo download leeyahay oo ii bilowday haddaba ma baahin ii dega marka teleefankaaga kugu degi doonaa kadibna waad isticmaali doontaa haddaba waxaan filayaa casharkani inuu si fiican ku qanciyay oo adan optionkan hore aadan u arkin haddii aad hore aadan u arkin optionkan hadda uu kugu horeydo share dheh oo la wadaag asxaab kale ayaguna aan wali arkin qaybta hoosan ugu wac qof aad la jeclaan lahayd inuu video iyo live kasta oo galo uu duubto ama uu la soo dego waxaad kaga maarmaysaa optionkan inaad lagu duubo oo aad screen recorder isticmaasho teleefankaaga si ay kugu duumaan waxyaabaha aad u baahan haddaba daawade waxaan ku leeyahay waqti wanaagsan oo wacan xilli kasto adiga ay ku tahay videogan ama casharkana ka baqeen share iyo like.